بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الأمانة سلامتي ملو بعدين كجوتين كسر هذا جمل كينا وطو channel أنا ما جاي بينتو واحد دابنسين وطو channel سيرش مدله كسر هو مرول بو مدح كركيس أيانك سالنتي دتك channel كسر محلية ويلكم نشان أونلاين واي حلو البار وباشر مرد دال يوحي برا بلشة حلقات للشيء جاي عم حلقات كسر وهكذا دابنيسا مرك أوكي عم فهم كسر هذا سيرش مدله فيديو لايك صار نو شير كري برا بلشة نو شير كري سيدي فيسبوك انستغرام ايميل اي شيء استعمال شيء نو شير كري هذا كله شير كري انت الى دد بدن سيده عمل اشرب بدن انا صراحه الى ميل وقو قفا كجو خبايا فيديو ان تصبس marka noo share kale si dadka noo soo raacaan marka aad iyo aad u maadsantiin waxa raba inaan idin wadaago waraasi oo BBC la yeelatay fanaankeenna Sharma Boy oo warays la yeelatay BBC oo ah markii ugu horeysay oo warays la yeelatay Sharma Boy BBC maxaa kala qabsaday BBC wixii kala qabsaday iyo qisooyinkiisa iyo wuxuu ka sheekeynaa iyo fanka sidoo uu ark iyo wuxuu fanku joog iyo heesihiisa dadka sida u jecel iyo murtida iyo madadaalada oo shacabku u yahay Sharma Boy oo ka waraystay BBC aan isla socon qali waxaan mahadsantahay horta rasiga aad iga qaadayso dhammaan waan salaamayaa bahda BBC mas'uuliyiinta maamulka iyo dhammaan shaqaalaha walaashay waxa waana fanka waxa soo galay muddo 2 sano ah ku jira 2 sano hadeesan waxa ka yaran 2 sano ku jira fanka waatan Sharma intaan ognahay heesaha guraab ay u badan yihiin marka maxaad heesaha ku salaysaa markaad heesisid ma jacaylka dhankiisa mise dhanka wadaniyada horta waxa aniga heesaha aan qaado ama aan tiriyo markii taas loo soo noqdo gaar ahaan wax lagu yaqaan waa iska raab iyo dhalinyaradaasi baashaalkaasi ma fahantay iyo waxyaabaha raabka laftirkiisa waxa waaye waxyaabaha oo hadalhaynta magaalada iyo suuqa magaalada iyo waxyaabaha muhiimka ah oo magaalada ninkaas ku jira ama wax gaban karo oo lagu soo dhaco dhalinyar ahaan ka fikir ahaan magaalada keedina sidoo kale hadii loo soo noqdo jacaylka ayaguna isku fiican oo qaada kuwa wadaniga barbaraa iska gashtaan ataagis aan sameeyo laakiin waxa waaye ilaa haddeertaan waxa joogi dhalinyarada ku jirnaa waqtigaana la soconaa waxa waaye had waqtiga soo u socdo aan wax u sameynaa wakaas walaashay waa tahay Sharma fankaaga maxaad isleedahay uu kaga duwan yahay fankii hore walaashay macaan fankaaga hadii fanka dhalinyarada hadda dheh muxuu fanki dadka hore uga duwan yahay ana dhalinyarada waxa waaye nolosha hadda ka duwan tahay adduunka waa adduunka hadda ka duwan yahay waxa waaye dalkeena sida hore sida hadda ka duwan yahay wax walba isku bedelayno fanka isku bedelay Soomaali kaliya adduunka oo dhan waa sababta wax walba laga tagaa ma garate wax walba meel leeyihiin ay ku egyihiin haddana dhaqankaana socdo waxa waaye dhalinyartu waxay u baahan tahay anaga waxa inoo gadmaarnaa muhiimada maraadan caado oo heesi karaa caadi inta anigu sameesto koos aniga laxan baan sameesto qof iima sameeyo oo galayaan sameeya xataa anigu caadi ah fariiba iska tuurtaa oo goona asal qorey waxa soo bandhigay baashaalka in dhalinyarada u badan sidaas darteeda dhinacaan oo go'de badana hadda moodinaan waxba qori karin oo aan isku aadin karin oo sharmadeel qaaf way reeyay iska dhalaga deel qaaf kamid ah anagu tala galno waay qof walba oo wax garad ah ama wax xuriyo ama hal abuur oo dareemi kara tii waxa saa u sameeyay qof aan hal abuur ama abwaa oo ma sameyn kara xataa koos kaliya abwaan ayaa saa u sameyn kara walaal waa tahay Sharma sidaan ognahay fankii hore murti madadaalo xikmad wax badan ayaa laga baran jiray maxaad isleedahay fankaaga waa laga baran karaa baa horta waa sax fanka hore fanka hadda kaga duwan yahay baa fanka hore hadda waa laga tagay wax uu yahay malahan xaqiiqda markii laga hadlo fiyus malahan wax uu yahay malahan maxaan ku had caadi u hees oo lagu leeyahay caadi u hees sida fanaaniinta hadda kale iyo xataa si qadar raabka leeyahay ku jiraan qaabka u heesayaan iyo qaabka oo macnaha qaabka raabka leeyahay ku jiraan ma fahamtay midda kale bay raabka iyo maanta iyo heesaha caadiga ah adduunka markii la fiiriyo Soomaaliya iska daayay waxa socdo waa raab wax adduunka ka socdo dhanaan ma socnaa midda kale dadka dhahayo murti maahan raabka maahan kii hadal oo dhan murti ah hadal oo dhan qofka bini'aadanka ah oo ku hadlo murti ah waxa waaye marka laga reebo afrigaada iyo caay iyo marka laga reebo wixii oo maaragtay qofku fahmi kara murti ah aqaana فهمت؟
hadda maanta aan raabka iyo saacadigan waxa murtu aqaanadaan raabka waayo adduunka wax ka shaqeeya waa raab waxa mana laga sameeyo waa raab wax magac lagu yeesho waa raab wax adduunka haddeerta dhalinyarada oo dhan inay noqdaan rabaan waa raabar fahantay marka aniga hadday iga yeelaan waxaan dhihi lahaa dadka hadday saacadiga qaadanaysaa dhan iska dhaafaan oo godkeena soo galaan jeclaan lahaa waa haddii suuragal tahay badan markaad heesaysid Sharma Boy waxaa lagu arkaa adiga oo kula joogan dhalinyaro kula ciyaaraya oo garbahaaga ka dheelaya marka dhalinyarada horta ma koox baa ka wada tirsantihiin mise waa dhalinyaro iska saaxiibada maalinta aad hees soo saaraysid unbaad u wacataa horta aad baa mahadsantahay walaashay dhalinyarada markii loo soo noqdo kuwa asla dheel gareen ama dhalinyaro soo kirista ama dhalinyaro la soo wata sida fanaaniinta qaar ay sameeyaan meelaha jooga maahan dhalinyarada waa dhalinyaro isfahansan oo isku joosa oo saxaaba isku xaafada reer Marwaan reer Madiina reer Kaaraan reer Boondheere aanu kala badan yahay mafahantaray waa beri marka dhalinyarada waa isku imaada waa la wada caawiyaa waa la wada kaftamaa waa la isku cabiraa reer Xamar dee dhalinyarada reer Xamar ninka Xamar yaqaana garanayo waxaa waaye waa is jecel yahay isku xaafadaan waa isla joogaan tee waxaan waa isla qabtaa nin macaka qaataa nin waxba ma ahan waa dhalinyaro asxaab aan nahay mar walba saas isugu xirannahay haatan aan kula hadlayo xataa qaar ka mid ah la joogaan waxaa waaye mar walba saas isugu xirannahay waan jeclahay in saas isugu seexdno masha Allah dadku siyaabo kala duwan ayay fanka u galaan qaar jacayl iyo hubbi uu yahay qaarna inay lacag ka sameeyaan adiga qaybtee kugu tiriyaa ama qaybtee ka tirsan tahay qofkan fanka lacagta ka soo galayna qofka qiimaynta cidna ay saafay laakiin qof la yaqaana oo fanka shacbiyadkooda qasab lacag soo galaysa ama lacagta ku dheelo ama soo doonan ka yaro ama ganacsi ka sameeyo laakiin waajib qof la yaqaano shacbiyadkooda كل شيء أصيل وصباح أنا كحنا تانا كانوا ولا بدل هذا ولا بدل وان كسمة إنكستو أب وبلانتا شعبية ده حاجة شعبية ده يعني عن طريق سمة سكير طبعا حاجة سمة لكن شعبية ده صومالي كنا بريطانيين يعني waa tahay Sharma Boy waxaan ku yar dheeraanay dhanka sheekada bal aan dadka u soo laabano oo aan dhagahooda maqashino mid kamida heesaha aad adigu aadka u jeceshay maxaad heesteen noo soo qaban lahayd oo aad adigu waliba noo dooqi lahayd heesaha waxaa jirta hablaha ugu talagalay oo hablaha Soomaaliyeed oo hooyadayda ka mid tahay ugu talagalay oo ah haweenka soo wada hadeen hablehena ugu horeeya oo hormuud hablehena ugu horeeya oo hormuud ayagaan isku halayna nafta waan hurayna ayagaan hiliyo ka helaa hadii jeer ayagan ku hurda ayagan miiliyo ka hela hadii jeer ayagan ku hurda iyagay hooyaday ka mid tahay oo aan miiliyo ka hela iyagay hooyaday ka mid tahay oo aan miiliyo ka hela waa tahay Sharma aan ka soo laabano heeskaasi Sharma waxaad dhawaan soo qaaday hees la magac baxday 20 jir biraabane horta madadaasa jirtaa muxuu heeskaasi uu ka hadlayay horta ani 20 jir waan ka yaray ma fahantay waxa waaye markii loo soo noqdo oo isyareynta ee kaftanka aniga 18 jir ahay markii oo xoogaa runta loo dhawaado lahan waxa waaye BBC ku wareysanaysa 20 iyo waxa waa ani laba jir ahay ma fahantay هذا لما تيجي جري إلا تضرب جري طبعا محل هذا طبعا إسقال جري يصير لما تجري على السكولة ما فهمت مركا ناس تقول لي لما تنجر أنا قصي صراحة هذا مركا لما تنجر تها أنا يردين كون قطعنا من عندك تعمل برأة يوم تها حوالي ولي وقت أهل ستين برنامج شداد يعني ذلك كانوا يذكرون إن محل هذا أجيب إنك بدنا أسمي كثير أو يوجد تواساس لما تنجر كعدك بر فهمت waa tahay Sharma dadka qaar markay heesahaaga ay ka falcelinayaan qaarkood waxay sheegaan inaad heesahaaga midhahaaga ay ku saabsan yihiin adigu isku faanisid iyo ku sameeyo midhahooda
nolosha aad baa umahadsan tahay. fankan waxaa waaye waxa aan sameeyay in la isku aadisto walaa qof iga saacido. haddii qof iga saacidin oo qof tala ku tursado ka waramayo warigaana sameeyay wax kala miyaantii oo qofkii oo aan dee qof qiyaas lahaan aan ka dareemin warigii waxaa waaye agtiisa oo ka gadmay sida aan u baanayno dadka agtooda ka gadmaan dee waxaa waaye kamal labalameeyo haddii uusan ka gadmin xataa warigaana ay gadmo waxaa waaye kusoo tuba waxaan aniga isku aadiyay waaye qof nagida masaacido yari qoris maskaxdayda aan ka ahayn waxaa waa tahay badi markaad heesahaaga qaadaysid qaarkood waxaa loo maleeyaa ama loo fahmaa inaad cid kula dagaalaysid adigoo qaarkood isku faaninaya libaax baan ahay caragtayda soo mar marka ma cid aad si gaara isu dagaashan tihiin ayaa jira abaayo horta qofka markuus isku kalsooneen oo kalsooni oo isku qarin oo waxba ahaan oo maxaa la dad ku dhagaa ama dad kaleeta wax ku dhaga hadla ama wax ka sameeya horta anigu nidaamka ka ahay dhaga hadal wax la dhaho mana jecel inaan ragga ka dhaga ama inaan dhaga hadal aan sameeyo ragga aan gadaashooda ka hadlaa waxaa waaye soo qofka iyo soo hortaagan aan ka hadli karo nin walba wuxuu yahay iyo wuxuu yaqaano ku meel maraya shakhsiyadeeda dee qof walba aan aaminsan qof walba meeshuu raabar walba ka aaminsan yahay inuu kaliya muqdisho raabar ama soomaali raabar uu yahay laakiin muhiimadda waxay taa kuu sheegayaan just to know waqtigeygaan ku jiraa hayadoo faanfaan iyo xagga laiska dhigaayo aysan jirin wax faan ah haddana ma arko aniga saan wax u sameynayo qof walba si gooni u sameynayo qof walba waxa si gaar u sameynayo laakiin just waxaa aniga sameeyey isaa u sameynaya qof u sameyn karo uguma jeedo soomaali waana jecelahay inuu kasoo dhexbaxa qof saas u sameyn karo waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay kaalinta heesa oo aad nagaga tegi doontid oo aad rabtid inaad maanta noo soo xushid marka farabadanyahay gudaha daar daaqada xero fur soo deg markale meeshaan istaag okay marka waxaa meesha noo ag waraysigii uu ka bixiyey Sharmaboy oo ka waraystay BBC marka waraysigii ayaa meesha uu hadlay arrinkana ma hadlaayo ma la dhahayo oo hadlaa oo fardabaxa kulli waa kay fanki sidaas ayuu ku joogaa Sharmaboy marka meesha ayaan kusoo gabagabeynaa video saarad dambe isla video xigayaan balana